السلام عليكم. halkan waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo saddexda reer ee ugu deeqsiisan Soomaalida deegaankeeda ama deegaanka Soomaalidu ay ku nooshahay dalka Soomaaliya loo yaqaano. saddexda reer ee ugu deeqsiisan baan rabaa inaan ku soo qaado, laakiin si reer baa number 1 ku jira. sideedaba markay deeqsinimo noqoto ama Soomaalidu ay deeqsinimo ka hadlayso, waxaa jira saddex qaybood baa loo kala qaadaa deeqsinimada. deeqsinimadu waa saddex isku xigta weeyaan. waxaa la yiraahdaa qof wax quura, qof wax lagu qabsado iyo qof wax laga qaato. saddexdaas loo kala saaraa deeqsinimada. qof wax quura waa qof dadka wax ugu talagalay oo xoolihiisa maalkiisa uu haysto wax kamid ah ugu talagalay inuu dadka siiyo, ama marti ha noqoto ama dadka la socota ha noqoto ama qaraabo ha noqoto ama ehel ha noqotee ugu talagalay baa la yiraahdaa. qofkaas mar hore wixiisi meel buu iska dhigay. waa qof wax quura, xoolihiisa uu ka qoonteeyay inuu dadka wax siiyo. waxaa ku xigo qof wax lagu qabsado. qofna wuxuu qoondeeyay iyo wuxuu cid u qaybsan midna ma jiro, maalkiisa waa lagu qabsan hayaa. asagoo haya markaa u timaadii hadda ku qabsatid waa ku sii deynayaa, hadalka keeni maayo. mar haddaad ku qabsatid waa ku sii deynayaa, hadalka keeni maayo. asagoo lacag hayaad u timid, lacagtii baad ku qabsatay waa ku sii deynayaa, kula hadli maayo. maal baad kaga dhigtay, maalkii waa ku sii deynayaa. geel ha ahaado, loo ha ahaado. qofkaasna waa qofka labaad. qofka saddexaadna waxaa la yiraahdaa ama reerka saddexaad waxaa la yiraahdaa waa qof wax laga qaato. waxbaad ugu imaanaysaa, waa kala cararaysaa ama waa ka xoogaysaa, kaa daba imaan mahayo, ku dil mahayo, naga daayay balaado hala tagay buu leeyahay, waa kaaga harayaa. meesha dadka kale aan wax quuray waxooda hadda tabad ku dilhayaan. intaa wixii ka soo haraa waxa ama lama arko, iyo waxyaba lama arka qaarkoodna lama taaban karo, way ku dilhayaan haddaad waxooda taabatid. intaa wixii ka soo haraa qof wax quura, qof lagu qabsado iyo qof laga qaato. saddexdaas deeqsinimo ayaa jirta, bini'aadanka ka jirta. saddexda qoys ama saddexda reer ee Soomaali ugu deeqsiisan baan rabaa maanta inaan idinla wadaago caawa. waxa iga bartay nin cusubay baan ahay, iga culum qaata. awal waxaan kugu sheegay reerka ugu baqaylsan ayaan hadda kor video ku soo gudbiyay. waxaan rabaa markaan videoga dambana inaan kaga hadlo reerka ugu baqaylsan iyo reerka ugu deeqsiisan. waxaan ku hormaray reerka ugu deeqsiisan. reerka Soomaali ugu deeqsiisan ee xoolahooda aad wax ku leedahay, maalkooda aad wax ku leedahay, lacagtooda aad wax ku leedahay, hadduu wax cun hayo iyo hadduu wax gacanta ku hayo aduu aad wax ku leedahay oo wax ku talagala oo wax bixin markii la yiraahdo dadka xoolahooda xoolo ka gooya ama maalkooda ama cuntadooda cunto ka dhiga say dadka kale u siiyaan, waa reerka la yiraahdo Isaaq. reerka la yiraahdo Isaaq weeye, iidoorna waa loo yaqaanaa. reerkaas waa reerka Soomaali number 1 galay xagga deeqsinimada. saan anigu awooyaasha ka soo gaaray iyagoo sheekeynaya ama abwaanada aan ka dhageystay ama Soomaalida intaan noolaa aan dhageysanayay. waxa weeyaan reerka ugu deeqsiisan waxa weeyaan reerka la yiraahdo Isaaq. nimankaas waxa ay gacanta ku hayaan waxbaad ku leedahay. inta labada qolo soo hartay Soomaali oo numberka 2 iyo 3 ku jirta waxay u kala baxaan qof qabiil wax lagu qabsado oo markii waxooda lagu qabsaday ay ku sii deynayaan, iyagana dib baan ka sheegi doonaa, ku sii deynaya. iyo qabiil wax laga qaato oo markii waxooda aad kala carartid aan ka daba imaanayo ku dhahay naga daaya qaadayay. wixii ka soo hara intaasi waa wax inay waxayaan baan la arkayno, ayagoo waxyaba arki maysid, indhaha saari maysid, ayagoo waxaya. kuwana haddaad waxooda taabatid ama hunguriyeysid xabad bay ku dhufanayaan, waa ku dilhayaan. labada qaybood oo dambe waa labadaas. ayagana dib baan rabaa inaan ka soo sheego. marka reerka number 1 galay Soomaali hadday noqoto wax bixin iyo ku hoyasho iyo soo dhaweyn iyo martiqaad, Isaaq baa la yiraahdaa. iidoor weeye, waa Isaaq. saasaan rabaa inaan idin sheego.